حسن agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha Puntland runtii maanta waxa farxad ii ah inaan joogo goobtan quruxda badan oo jaamacadda Sitkod oo runtii soo bandhigtay barnaamijyo aad u qurux badan oo casri ah oo tiknoolajiyada la xiriira oo dhammaantood aan aaminsanahay inay yihiin barnaamijyo nolosha dadka iyo horumarkooda qayb weyn ka qaadan kara runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyarada maskaxdoodu ay soo curisay initiative-kan ama maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha kan hal abuurka aad u fiican oo la jaan qaadi kara dunida casriga ah barnaamijyada runtii nala tusay oo ay wiilasha iyo gabdhaha jaamacaddu soo bandhigeen oo la xiriirta farsamada casriga ah ama tiknoolajiyada runtii waa wax aanan filayn inay Soomaaliya ama Puntland ay ka jiraan laakiin waxaad moodaa in si qurux badan oo aqli ah oo aad maxaan ku yiraahdaa u ilbaxnimo ay ka muuqato iyo fikir aad u qurux badan oo weyn inay soo bandhigeen dhammaan tiknoolajiyadana la tusay haddii noqon lahayd sansarada haddii noqon lahayd kuwa biyaha water level-ka ilaalinaya oo runtii aan ognahay biyaha hawsha ina ka haysata ama sida aan biyaheenu ku yar yihiin haddii noqon lahayd kuwa solarka la xiriira iyo haddii noqon lahayd kuwa saving engineer-ka energy-ga oo ah runtii korontada in la seefgareeyo oo xilliga loo baahan yahay kaliya ay ku soo shaqayso eesiyadii iyo waxyaabihii la xiriiray inta kalena ay ka hadlaysanaato haddii noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa water level-ka iyo haddii noqon lahayd kuwa kale oo safety-ga la xiriira oo runtii aan ogtahay khatarada ka dhaca maxaan ku yiraahdaa gaaska waxyaabaha uu sababo marka waxyaabahaas oo dhan oo sensorka la xiriira waxaan oran karnaa waa tiknoolajiyada casriga maanta waa rajaynaya insha Allah inaynu gaari doono mustaqbalka warshadihii inoo soo saari lahaa oo dhalinyaradaas maxaan ku yiraahdaa initiative-kooda iyo project-yada ay sameeyeen maal gelin lahaa oo u bedeli lahaa nolosha rasmiga ah runtii dhalinyaradaasna waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo oo loo hambaliyeeyo oo lagu waxa quruxda badan ay soo saaraan lagu baarkeeyo marka dhamaantiin aad baa u mahadsantiin jaamacaddu waa mahadsan tahay dadaal fiican bay samaysay waxaan rajaynayaa inta in looga sii dhawaado la guuleysto aad baa u mahadsantiin Allah idin shukr